guud ahaan yani wadahadalka anagii dowladda Itoobiya soo socda meel fiican buu marayaa qeybo horena way dhaceen oo hordhac ahaa oo gobol xaar ahaa oo ay hogaaminayeen maamulka Soomaalida iyo wasiirka dowladda Soomaaliya wasiirka dowladda federaalka kaasoo gobol xaar ahaa waxaana hadda sugaynaa marba bilaaban doono wadahadalka rasmiga ah anagii dowladda Itoobiya oo aan rajeynayna wafdi heer sare ay soo diraan maalinka lama ballan laakiin guud ahaan wiiga u horeeyay October baan rajeynayna in arrinta ay dhacdo marka uu bilaaban doonaa mar dhow oo shirar kale oo yar xaggooda ay ku yar mashquulsanayeen marka waqtigaas ay qabsay hore waxaa idinka soo horeeyay ururo mucaarid wadankan ku ahaa tusaale ahaan Gumbo Sabaad Arbanyooj iyo ururka Onag marka ma waxbuu kaga duwan yahay kiinuu ururadaas heshiiska hore loola soo galay ururkaygu guud ahaan dee ururada kale Itoobiya ka jira lamid maaha ururkan wuxuu dabada ku hayaa dagaal socday muddo 60 sano ka badan oo ummadda Soomaaliyeed maray wada jirtay maray kala jirtay ay galeysay marka uu kana mugooyay warka culus yahay saadaradeed waxa weyn yani duruufo gaar u leeyahay marka isku wadci maaha waa ku kala duwan yahay marka daahitaankana ma duruufaha kala duwan awgeed ba mise waa siyaabo kale oo tusaale ahaan idinku waxaad mar walba aaminsantihiin ama maskaxdiina ka guuxaysa inaad wadanka dadkan afti laga qaado oo gooni go'daan marka waxyaabo aad kaga duwantiin idinka laftiina ururada miyaysan jirin maya shacabkan ay ka tashigiisu waa muqadas weeye gorgortan nama gelayso way taagnaanaysaa mar walba taa ayaga lafteedu waxaad moodaa in dowladda Itoobiya inay meel ayadoo iska dhigto dastuurkeeda ku qoratay laakiin mushkiladu hadda halkaa ma taagna guud ahaan laakiin duruufaha Itoobiya ka taagan baa aad u qasanta la socotaan oo qoomiyado badan oo kala duwan iyo duruufo kale marka duruufaha iyaga u gaara ay guud ahaan hawshan hawl yaro culus ahayd dib u dhac keenay laakiin hadda yani arrintaas mushkilad kama taagna wadahadalka u dhacaya waxaan rajeynaynaa in maaragtay nabad lagu soo dabaalo arrinta idinka iyo Itoobiya miyaad yar moodaa arrin xal mastuura oo la fisiday u dilaacday ama siday u jatay baa loo kabaa oo kala maya waxa weeye ururka oo la fahmigiisa kama tagayo shacabka Soomaaliyeed kama tagayaan laakiin waxa weeye qaabkii loo tacaamulay isbedelaya dowladdan waxay furtay albaabada dimuqraadiyadda waxay tiri waxa la wixii cid walba xaqeeda waan xurmaynaynaa si nabadgelyo ku doorato marka wajigiina isbedelay duruuftii siyaasadeed laakiin ahdaaftii ururkan iyo ahdaaftii hamigiisa isla bedelay shacabkan isla bedelay laakiin de meesha dagaalka iyo hilibka lagu raadin jiray si nabadgelyo lagu raadinaya marka taas waa fursad fiican oo runtii halkaa ka furantay annaguna waan tijaabinaynaa